galmudug ayaa xalay soo dhammaystirtay labadii kursi ee ka dhimanaa doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Hogaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xalay faafiyey magacyada xubnaha ku tartamaya labada kursi ee ka dhimanaa tartanka xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya galmudug. Kursiga koowaad Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa mar kale ku soo laabanaya booskiisii aqalka sare. bishii Julaay ee sanadkan waxaan idinla wadaagnay in 80% Cabdi Qaybdiid loo xiri doono kursigiisa tii ugu dambeyn dhacday. Qaybdiid hadda waxaa la tartamaya nin la yiraahdo Cawil Nuur Cali oo aan ahayn musharax rasmi ah laakiin lagu xalinayo qaacidada u tartamida kursiga. Cabdi Qaybdiid waxaa kursigan si weyn ugu haystay hogaamiyihii hore ee galmudug Axmed Geele Ducaale Xaaf kaasoo in muddo ah arrimaha kursigan u joogay magaalada Dhuusamareeb. laakiin hadda Xaaf waa la xaliyey. ila muhiim ah ayaa inoo xaqiijiyey in Xaaf lagu qanciyey in la siinayo kursiga golaha shacabka ee uu tirsigiisu yahay Hob 38 ee uu 4 sano la soo dhaafo ku fadhiyey Axmed Macallin Fiqi kaasoo ay dhawaan kala guureen Axmed Qoorqoor. kursiga labaad ee lagu dooran doono magaalada Dhuusamareeb oo ka mid ah labadii kursi ee ka harsanayd kuraasta galmudug ee aqalka sare waxaa sanadkan ku tartamaya Cabdi Cismaan Xareed iyo Mahad Aadan Guuleed. kursigan waxaa 4 sano la soo dhaafo ku fadhiyey Senator Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex kaasoo isagu iskii uga tegay. kursigan waxaa isbedel ku dhacay qofkii ku fadhiyey iyo jufadii haysatay labadaba. marka magaca kore laga tago kursigan waxaa la siiyey oo ku tartamaysa sanadkan jufo hoosaadka hogaamiye ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid oo ay beeshiisa hoose 4 sano la soo dhaafo ku qadsanayd labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah. kursigan waxaa musharaxa koowaad ah Cabdi Cismaan Xareed oo la filayo inuu ku soo baxo. waxaa la xaqiijiyey inuu ka yimid dhinaca madaxweyne Farmaajo. Farmaajo wuxuu xaaladda kursigan ku xalaaleeyey 2 kursi. mar waa inuu isagu keensaday qof ka qaadanaya kursiga. marka labaadna waxa uu bedelay jufadii kursiga si uu culayska uga dulqaado xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo muddo dheer ay kursigiisa kula dhaganeed jufada hadda qaadatay kursigaasi aqalka sare. tani waxay ka dhigan tahay inuu xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire dib la'aan soo qaadan doono kursigiisa golaha shacabka. Cabdishakuur Cali Mire waa nin aan laga gorgortamaynin halka uu geynayo codka. waxaa xildhibaannimada u dheer inuu ka mid yahay dadka uu Farmaajo ka tala qaato. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka mid ah xubnaha ugu culculus kooxda waaye arag ayaa kursigiisa ku soo laaban doona taasoo ka dhigan inay dhammaan soo noqdeen jilib culustii kooxda waaye arag. doorashada labadan kursi ayaa ka dhigan inay dhammaan doonto doorashada xildhibaanada aqalka sare waxaana toos u bilaaban doona xusulduubka loogu jiro doorashada guddoonka aqalka sare oo sanadkan la filayo inuu tartankiisu cuslaado. maxay kula tahay?